بسم الله. 3 ضيوف يأتون بلا موعد: الرزق، القدر، الموت. اللهم اجعل رزقنا حلالا واجعل قدرنا جميلا ولا تأخذ إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم آمين يا رب العالمين. صدح مرتي waxay kuugu yimaadaan bilaa balan. kow waa risqiga, laba waa qadarka, saddex waa geerida. ilaahay risqigeena risqi xalaala ha ka dhigo, qadarkeenana qadar qurux badan ha ka dhigo. ilaahayna isagoo raallina inaga ah mooyaane ilaahay nafta inagama qaado. saddexdaa marti haddii aan kusoo noqono waxay inoogu yimaadaan bilaa mawcid. imika maanta markay marti ku imanayso way kusoo ogeysiinaysaa, telefonkaa soo wacdaya, message kusoo qortaya, cod kusoo duubtaya. laakiin saddexdan balan iyagu bilaa mawcid bay kuugu imanayaan. kow waa risqiga, wax allaaliyo wixii lagu qoray. fideogan ka horreeyay bayn kaga hadalnay in wax kasta maalintii uurka hooyada aad ku jirtay lagu qoray. marka wax wal oo cunto ah, cabitaan ah, adu wax alloo risqi ah oo lagu qoray waxay kuugu imanayaan bilaa balan. adu waa cunaysaa waad cabaysaa, wax wal alla kuu qoray balan kuuma soo sheeganayaan, way kuu imanayaan, sidooday kuugu imanayaan. xataa markaas sii dhimanaysid haddii aad koob biyaa aad adduunka ku lahayd kama tegisid, koobkaaga waa sii qaadanaysaa, waa cabaysaa nacamtii. ka labaad waa qadarka. shayga labaad waa qadarka. qadarku bilaa balan buu kuugu imanayaa. wax kugu dhacay ha ahaado, xanuunku markay xanuunsanna ha ahaato, waxa ugu yar koob yar oo dhooba ahdo gacanta ku haya waxa u qorna inuu dhulka ku dhaco bas uu kaaga dhacaya. shayga labaadna waa qadarka, isna wuxuu inoogu yimaadaa bilaa balan inooma soo sheegto. shayga saddexaad waa geerida. geeridu balan inooma laha. maalintii ajashaadu go'do maalinta ajashaadu dhammaato bas adna adduunka waa ka tegaysaa, bilaa mawcid bay kuugu imanaysaa. intaasoo qofan jeclay inagoo dul taagan ayay naftu ka baxday, waayo waxay gaadhay waqtigii ay dhiman lahaayeen. haddaba saddexdaa shay waxay kuugu imanayaan bilaa balan, adna waxaa lagaa rabaa inaa aamintid. kow horta risqiga isaga wayn aaminaynaa, laakiin labada kale qadarka iyo geerida waxaa laga yaabaa weliba tana geerida iyadoo mar wal ay nagu timaado waynu aaminaa, laakiin waxaa adag qadarka se loo aamino. badanaa wayn shalaynaa, waxbaa kugu dhacaya, maxay waxaan igu dhaceen baad dhahaysaa, waxaan xusan iiga noqday, maxaasan wax iiga noqdeen, waad faqiir baa noqonaysaa, maxaa faqiir u noqday, wax yar oo wax wal oo kugu dhacda. marka labada kale waxaa laga yaabaa horta inaan aamino, laakiin shayga qadarka la dhaasayno aaminaa way adag tahay. marka saddexdaa marti waxay kuugu imanayaan bilaa balan, inagana waxayna laga rabaa saddexdoodaba inaynu aynu aamino mar walba ay nagu yimaadaanba.